suldaanka gabooyaha ee gobolada Awdal iyo Saaral suldaan ibraahim dacar ayaa maanta ka hadlay arinta madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu guddi wasiira u saaray oo ay ka soo talo bixinayaan saami qaybsiga siyaasadeed ee ay yeelanayaan dadka la hayb sooco iyo dadka laga tirada badan yahay sida dumarka. suldaan ibraahim dacar oo ammaan u jeediyay madaxweynaha isla markaana ka hadlay arrimo badan ayaa waxa uu yiri sida tan: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. waxaan halkan hambalyo iyo bogaano uga jeedinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, taasi oo ku hambalyeynayo oo guul yahay magacaabista golaha wasiirada uu magacaabay inay ka soo talo bixiyaan beelaha la hayb sooco iyo haweenka. guddiga wasiirada waxaan ku soo dhaweynaynaa beelaha la hayb sooco magacooga iyo magaca haweenka, taasi oo leenahay wasiirada inay ka fiirsadaan waa 4 beelood beelaha la hayb soocay: beesha Mandhibaan, beesha Muuse Dhariyo, beesha Tumaalaha iyo beesha Ibraahim. in dadkaas ma gali karaan tartan, waayo gobolada dalka oo dhan bay degan yihiin, degmooyinka ay degan yihiin, meel iskuma iman karaan. markaa waxaan leenahay ha loo sameeyo kooto u gaara iyagii haweenkaba, oo loo sameeyo qabyo qoraal lagu dhiiri gelinayo laguna darayo dastuurka dalka iyo shuruucda dalka inay kootada leeyihiin haweenka iyo beelaha la hayb soocay. ta kale waxaa guddiga wasiirada ee 4 beelood mid waliba xaq waxay u leedahay inay ka qayb gasho talada dalka, siyaasadda dalka. waxna la iskuguma dari karo. ha isku kaayeen mashquulina oo ha isku dayina inaad 4 beelood tidhaahdeen waxbaanu siinay oo wax naga dhexeeya aad noo magacawdiin. ha isku kaayeen mashquulina baan leenahay guddiga wasiirada qolo walba qaybteeda iyo waxay mutaysan tahay ha loo magacaabo qabaa. intaa haddii aan kaga baxo guddida iyo talada haweenka iyo dadka la hayb sooco, waxaan aad iyo aad u jecelahay oon hambalyo iyo boga TV-yada madaxa bannaan sida Universal, Somali Channel, Hoonkiiba oo adduunka ka dhaadhiciyey abaaraha geeska Afrika ka jira, gaar ahaan xamar koonfurta iyo Soomaaliland. Khadar Maxamed Xasan, shabakada wararka Xidigta, magaalada Boorama.